بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ugu horeyn dadweynaha iyo maamulka masaajidka waa mahad celinaya bacd Allah subxaanahu wa tacaala intaa kadib xilli abaareed baynu ku jirnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala roob khayr qaba oo caama dadka ha siiyo waxaan rabaa caawa waxaad taqaaneen inaan idin sheego ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin waani ama xasuusi baa la yidhi dadka mu'miniinta ah xasuusintiiyo waanadaasi dadka mu'minkaa bay wax tartaa diintu ma aha macluumaad tiro badan oo la kororsado ee waxa weeyaan wixii laysu sheegay oo lagu dhaqmo waxa weeyaan qofka muslimka oo hal uu halmaamay dib loo xasuusiyo si ay uga mid noqoto noloshiisa caadiga ah in kelmaddan caawa rabo inaan idhaahdaa waxay ku saabsiisan tahay aafa min aafaati lisaan dhib ka mida dhibka carabka oo nabigu calayhi salaatu wasalaam si guud wuxuu u tilmaamayaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wa yadi muslimkaba waxaa la yidhaahdaa qofka dadku carabkiisa iyo gacantiisa ka nabad galaan waxaa kaloo nabigu uu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam laba ciddii ii ballan qaada anna jannaan u ballan qaadayaa buu nabigu yihi ciddii ii ballan qaada inuu ilaaliyo carabkiisa iyo farjigiisa labadaa qofkii ilaaliya aniguna waxaan u ballan qaadayaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam janno waxa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dadku hadallada ay sheegaan marar bay hadal yidhaahdaan aanay u fiirsanin hadalkaasi aanu u fiirsanin bariyo galbeed intay isu jiraan in leeg ayuu naarta hoos ugu ridaa qofku markuu hadlayay waa iska kaftamayey wuxuu qiimo badan ma siinaynin laakiin cinda allaahi siduu shayga kale ugu weyn yahay mashriq iyo maqribi intay isu jirto in leeg buu naarta hoos u gala waa kii mucaadi ibnu jabal saxaabiga la yidhahdo yidhi ilaahay rasuulkiisii oo waxaanu iskaga hadlayno miyaa naloo qabanaya mucaada hooyada kaa goblantay buu nabigu yihi oo dadba miyay wejiga naar ugu dhacaan waxay ku hadleen mooyaane waxay ku hadlayaan ayaa ah buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaa naarta dadka ku fogeeya sidaa ogeed waxa aan rabo inaan wax ka tilmaamaa waxa weeyaan mas'ala aada u taqaaniin laakiin haddana laga gaban waayey oo rabno inaynu ku celcelino waa dadka wax ka sheegiisa iyo xamashadiisa imika waxa laga yaabaaba inaynu haysano akhbaar siyaasiya inay tahay iyo see maxaa jira iyo waxaa jira la sheegaya in waa dadka magaalada joogo dhan in la xanto marka la xanto ayay noqonaysaa khabarkii siyaasiga aynu isu sheegaynay waxaynu ka warramayno intooda ugu badani waa dembi sidaa awgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa bulshada muslimka ah inay noqdo bulsho caafimaad qabta caafimaad qabku wuxuu ka bilaabmaa dee dadku inuu carabkaaga iyo gacantaada ka nabad galo meeshii gacantaada laga nabadgeli waayo colaad baa taalla iyo dirir meeshii carabkaaga laga nabadgeli waayana dee cadho iyo ismaag iyo colaad kalun baa taalla sida awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu u tilmaamay war horta xanta ma taqaanin buu yidhi atadruuna ma alghiiba xanta ma taqaanin buu yidhi
dhaqanka saxaabada in badan waxaa ka mid ahaa si ay nebiga cilmi uga kororsadaan wax kastoo xataa ay wax ka ogyihiin inay yidhaahdaan allahu wa rasuuluhu aclam alliya rasuulkiisaa og markuu ku yidhi xanta ma taqaanin bay yidhahdeen ilaah iyo rasuulkiisaa garan wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dikruka akhaaka bima yakrah waa walaalkaa oo aada ku sheegto waxuu nacayo gaar ahaan waxay yidhahdeen kiiba waxa loogu bixiyey waa isagoo kaa maqan marka aada sheegto waxa uu nacayo waxa uu nacayaa wixii doonaysaba ha noqoto waxaa dhici karta waxaad dad qofnimadiisa ka sheegaysa inay tahay waxaa dhici karta waxaad diintiisa ka sheegaysa inay tahay waxaa dhici karta waxaad adduunkiisa ka sheegaysa inay tahay waxaa dhici karta waxaad dhismihiisa iyo qaabka jirhkiisa ilaahay u abuuray aad ka sheegaysa inay tahay waxaa dhici karta waxaad akhlaaqdiisa ka sheegaysa inay tahay waxaad reerkiisa ka sheegaysa inay tahay baabku doonaha ku saabsanaada imaamu nawowi wuxuu leeyahy wax allaaliya wuxuu qofku karaahiyeysto ee isaga si uun xidhiidh ula leh aanu rabin in wax laga sheego wax ka sheegoodu waa xan buu leeyahy waxa aad kaga sheegaysaa ama carab ha noqdo ama tilmaam ha noqdo isha aad jebiso carabku aad ku muddo gacanto aad qaabkaad doonaysa u dheh dhammaantood waa xan buu leeyahy xataa waxay culammadu yidhaahdaan waxaa xana inta qofka la sheegay inaad tidhahdaa ilaahay ina cafiyo waa xan bay yidhaahdeen yacni ilaahay ina cafiyo umaad dan lihid bay leeyihiin inaad rabto cafwiga rabbiga inaad doonaysee waa duurxul aad u duurxilaysa bay leeyihiin qofkan wax laga sheegayo qofkan wax laga sheegayo ayaad u duurxulaysaa bay leeyihin iyo nas'alu llaha salaama iyo kullu dalik bay yidhaahdaan kiibaday ka tirsan yihin xantay ka tirsan yihin waxaa ka tirsan bay yidhaahdaan xanta inaad siiqatu tacajub u sheegto ama inaad ka murugaysantoo kale bal mu sidaa iyo sidaa yeelo yacni siduu yeelay baad duraysaa bay leeyihin miskiin hebel baa lagu yidhi waa caynkaa markaasaa tidhi miskiin miskiinnimadan aad sheegaysa maaha inaad leedahay waa nin iska miskiin oo ilaah yaqaana ee waxa weeyaan waa duurxul bay leeyihin aada u duurxulayso walidaalik wax kasta oo noqon kara bay leeyihin qofku inuu naco in lagu yidhaahdo oo wax ka sheegahay wuxuu noqonayaa nooc xanta ka mid a culammadu markay baabkan ka warramayaan saddex masale ay kala saaraan oo luqada carbeed la yidhahdo alghiiba iyo albuhtaan iyo alifk qolaa waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisa iyo waxaanaanu ku sheegayna hadduu yahayna isagoo maqan baad wax ka sheegtay laakiin waxaad ka sheegaysa wuu yahay laakiin muu rabo in laga sheego wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay had maqan ka sheegto oo aanu rabin faqad iqtabta waad xanad waad xamatay haddii aanu ahaynna faqad bahadta buu nebigu yidhi waad ku been abuuratay marka haddaanu ahaynba iyadu waa been abuurad waa dembi ka sii weyn hadduu yahayna waad xamatay buu nebigu tilmaamaya xadiid culamadu ay ku tilmaamaan inuu xasan yahay ayaa waxa ay tilmaamaan isagoo nebigu fadhiyaa nin yimi dabeetana waxay ku yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii bay ka warramayaan laa yaakulu xataa yuطcam bay yidhaaheen walaa yarxal xataa yuraxalu lah wax ma cuno in la cunsiiyo mooyaane waxa la siiyo mooyaane wax kale ma cuno ma guuro ma rarto in loo rara mooyaane yacni ninkan dacfi liidashay rabaan inay u qariyaan ama caajisnimo iyo kaslaamnimo ay rabaan inay u qariyaan marka waxay leeyihin yacni xataa naftiisa ma daryeela inaad wax siisa mooyaane wax cuni maayo bay idhahdeen ama in loo rara mooyaane neefkiisa intuu fadhisiiyo kooraha saari maayo wixii uu baahnaaye wuxuu rabaa in loo raro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi qad iqtabtumuuh waa xamateen markaasay yidhaahdeen inamaa xadaثnaa bima fiih
إلهي رسول كيسي وحو أهون بانو شيخنا إنك أن الليزين ماذا يوحو وطا حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه من نقول أحكو غفلا ولا لك وحو يهينات كشيك تاباكو غفلا عنو الربين ويوحانو هين هدات شيكتو يدو أذى ليرادة وبهتان والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إلهي وحولاي قوة ضدك المؤمنين تأكل بيا يكون شيء يرقي الضمر با بغير ما اكتسبوا وحاني كسبن وحاني هين كل شيء قوة فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قوة يقول دم بوين يبين أبورد وين بيحبارين با ربي كنت المامية إذا صدح ذا الشيء هو نوع من الغيبة بيلي وحو يهو نعيين كل شيء war lagaaga sheegay inaad hubinin inaad ku sheegto iyo mid aad adigu been abuuratay inaad sheegto marka ama waa ghiiba ama waa ifka ama waa buhtaan wuxuba bay leeyahay baabkan bay soo wada hoos galaya baabkan xukumkiisu waa maxay quraanka iyo axaadiista baa waxa ku soo aroortay inuu xaaraan yahay culimada badhna ده إجماع بابا يسون نقليان إن مسلم كسكوا فقصية علماء المسلمين تو إن سكوا فقصية ماشى سين أنا مرنا ببنانين إمام النووي باصو نقلنا إياه بل جماهير العلماء وحي نقلنا إياه وحي سوق جورنا إياه إن الذنوب تواوين كمتة جماهير العلماء صاصي خبا إن الذنوب تواوين كمتة هاي إلهنا قرآن كي سوى حكت المامية ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم واربركين بركة كليو حمن با إلهي لي متكين ميو تعالي يبا رب المامية هلب كولالكي وبختي ينوعنه marka hore hilib bini aadam in la cuno bini aadamku ka yaqiiqsooda dadka hilibkiisa ma cuno mar labaad inuu walaalka noqdo waa ka sii darantay mar saddexaad inuu meyd yahay waa ka sii darantahay ilaahay wuxuu ku tilmaamay marka walaalka iyo meeyda hilibkiisa inaad cunto miyaad jeceshahay waad nacaysaa baa rabbi tilmaamaya idan xantani noocaasay la mid sida walaalka iyo meeyda hilibkiisa aanad u cunteen أياني أفعنين إن هذا وحمته إلهي وحلي ولا تلمزوا أنفسكم ورنا فينا عيبيننا مسلم هو نف واحد ولا كان مركز عيبي سوى حيلا متأدون نفت هذا عيبي ولا تنابزوا بالألقاب ورنا نيساها قروح ضبطنين هيسوي لنا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون إلهي القرآن كوحينا وقلت الماما يدك وقالين لك والرميو ويل لكل همزة لمزة عذاب يهلاق يهوب وحوص قناضي متكسته وحن بدنا أويا همزقيا لمزكو ومتكسته عيب بدنا وحي كوكلا فرقيا علماء قاركود لبدا إري من إنه يهي بالفعل من باللسان إن إشاء ما عربك ما قابون أن هذا لهين رادو وحمن يسوي حق رئيسي أما ما هين هذا عربك كو حمن يسيد لما دواش كميت مركا وقفك يواد وحانو كرر لهين أكت المام يسو إلهي سبحانه وتعالى كوا وحكت المام يا لينبذن في الحطمة بإلهي سوي يقولك عرض جود يشرفته ده بيدومينين إلهي وحو قالين ده وحا لغو طوري دونا بالي لحطمة بربوريسة نار ليرادو نار بربوريسة اسبدتك شرفتي سو بربورين إلهي وحو لي نار ينوح بربوريسة أيو قالي دونا أيها الأحبة إلهي وحو لي ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بالنميم مناع للخير معتد هم مقلب با إلهي النبي يسكت المام يكون كستور دار بدنا أوليته أو عيب بدنا همازة دتك عيبية وحكشيجا نميمة ضيّة يسكت درك كشقية الهمازة هي المغتاب للناس بكفصرة
إلهي سبحانه وتعالى قرآن بدن بكت المام يعني ممنوعت نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حجكي وحجي ود وقت الدمنا أها سنة السقالات ميلها أها لو قربوا خطبة دي سنور كا صدح ميلها خطبة دود وحا كتشرة مسألة ومسلمين تكعل عليني يدو بيدا دان بقول كنا مسلم ضد كبدني جوجان أيو ويدي وربشنا كتشرتم واتوما مشنا جوجتم وحقي سؤال عنك سنبي ويديني سئو التنبيهية يسوع تشستان إسلام كان حرمة وحصاص على والربين وتلمام وحيو شيئا بلد كينو بلد الله الحرام يهي بشو أشهر الحرمين يتهي وركاسي وشيئا نبي عليه الصلاة والسلام وحولي فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ورديقين يحولهن يعرضهن عرضك وحا الله يلاهده موضع الذنب يلاهده والمدح عرضك وحا الله يلاهده وشرفتي قفك بني آدمك وماشى أمانته أما عيبينته هاي كقدع قفك بني آدمك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حج كاسي إن صدح قور قاريسة أي خطبة دا جيدي والله الله يا صحابة وبقول كنا مسلم وميل تاغان ووعدين أيو أولي وروح الله غيابا سنة كان دبدي إننا ميشان سقيما لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا لما نقول من سنة كي دبديت ودردارنكم النبي كتغيي دردارن كاسي waxa weeyaan dadka inaad nabad galiso qofka muslimka ah dhiigiisa maalkiisa iyo sharaftadiisa waxa waxyeela carabka u badan waxa waxyeela waa xanta iyo wixii la halmaala waxa uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inna min arba riba الاستطالة في عرض المسلم بغير حق الربا ده واحد نقارنا شرعي إنه يكون أدقت وشيء إلهي القرآن كيس كوت المامي عند الله تما دقال هودي يرجعود الدب النبي يقول لي الرباين كوجر ربا السم وحكم ده كوجر كرّي الربا ده وحكم ده الاستطالة في عرض المؤمن استطالة أي إطالة اللسان adigoo carabkaaga ku balbalaadhiya qofka muslimka sharaftiisa bigayri xaq ugu balbalaadhiya oo marar yar oo kooban bay soo reebi doonaan culimadu oo ay yiraahdaan waa mararkay banaantay inaad wixii waxa anfacaya inaad sheegto oo qura waxaad qiyaasi kartaa nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo Aisha gabadh kale oo muslimada ay ku tiri waa gaabanta hebelay waa gaabanta oo nabigu leeyahay weedhaad ku hadashay hadii badda lagu qaso way qasi lahayd hadii waxyaabahan midabka dooriya waxa jira biyaha hadii wax midabka dooriya lagu rido inuu midabku isbedelo oo si kala badda dhan buu nabigu leeyahay hadii laga dhigi lahaa hadalkaaga wax midabka dooriya badda dhan bay doorin lahayd waxay tirina waa maxay وقابمتي بيتري waxay culimadu yiraahdaan marka waxay tilmaamaysaa sida ay u adag tahay qof muslima in wax laga sheego waliba wax ka sheegaasi meelaan wax anfacayn inuu yahay nin baa zinaystay dabeetana uu toobad keenay dabeetana nabi maxamed buu yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hal rajmiyo waa la rajmiyo dadkii rajmiga ka soo noqday laba wada hadlayo mid baa wuxuu yiri bal ka eega inta ilaahay ceebtiisa asturay buu asturi waay ilaa iyo sida ayda loo garaacay sida ayda dhagax loogu dilay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka inkastoo sanadkiisa culimadu ay leeyihiin waa daciif waxa uu tilmaamayaa ninkaasi inuu ku tilmaamay wax aad u foolxun bakti intuu soo dulmariyey inuu yidhaahdo baktigaasuu lami cun dabeerka baktiyey ما هو كان ما يلا عناية ولا لي واحد تري وواحد صاكله
waxaynu leenahay aayadda qur-aaniba dee waa macna ay tilmaamayso ayuha alaxiba wax diinta aynu ognay inay mamnuuc wadato reebantay baynu fudaydsanay ilaa soomaalidu ay idhaahdaan xooluhuna waa cawsku nool dadkuna waa maxay waxaa laga dhigayba wax lagu nooliyay inay tahay xanta iyo waxa kani waxa nolosha ka mid oo fudud inay tahay baynu ugu maahmaahnay waana diinteeniyo aynu runtii meel weyn kaga dhacayno waa intii yarayda ajarka ahayd ee salaada iyo soonka aad shaqaysatay oo aad cid kala siinayso maxaa ku bixiya dadku inay wax hantaan culamadu waxay idhahdaan kow ضعف الورع والإيمان dadku xalaal miiradnimadu ku yaraato iyo iimaankoo daciifa waayo waxay dhahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisha markii beenta laga sheegay ayuu zaynab bintu jaxash u yimid zaynab caaisha waxay leedahay haweenkuu nebigu qabay waa gabadha qura ila loolami karaysay yacni quruxda iyo qabiilka iyo waxa marka la eego waa gabadha qura ila loolami karaysay dabeetana nebigu wuxuu weydiiyey arrintan waxba ma ka maqashay waxay tidhi yaa rasuula allahi axmi samci wa basari ilaahay rasuulkiisiiyo anigu ishayda iyo dhegtaydaba waa ilaashanaya caasha waxaan khayr ahayn ka sheegi maaya bay tiri waa gabadha kale darra u ah lala qabo haweenka la wada qabana inta badan loo lama si uga dhaxeeya marka waa gabadha lala qabo oo gabadhii lala qabay weliba wax ceeba laga sheego magaalada aada ugu faafay markaasaa waxay leedahay anigu ishayda iyo dhegtaydaba waan ilaashanaya caaisha oo xadiidka ka warramaysaa waxay leedahay facasamaha allahu bilwarac bay tidhi gabadhaa ilaahay wuxuu ku badbaadiyey xalaal miiradnimadeedii dembi iska ilaalinteedii bay ku badbaaday bay leedahay iyadu halkay dad kale dabbaasheen ee galeen culammaduna waxay idhahdaan xalaal miiradnimada waxyaabaa ugu waaweyn waxaa ka mida bay idhahdaan carabkaagu aada ilaaliso oo aada ka ilaaliso dunuubta tirada badan leh waxyaabaa dadka ku bixiya xanta waxaa ka mid a fadhiga oo lagu hagaajisto dadka wada fadhiya sheekooyinka dee fadhigay ku hagaajistaan laakiin kuwa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa aakhiro inta naarta lagu guro inay odhan doonaan wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin kuwa dhumbada warka un la wadun baanu anana sheekadaanu dacalkayga kaga jirnay nakhuudu maca alkhaa'idiin kuwa dabaalanaya kuwa dhumbanaya baanu la dhumbanayni nabiguna wuxuu leeyahy waman iltamasa rida annaasi bisakhat illaah wakalahu allahu ila annaas xadiidku inta uu ka dheeriyey wuxuu nabigu tilmaamayaa qofka ilaahay raalli geliya aan dadka cadhadooda u eegin ilaahay baa kaga filaada dadka cadhadooda iyo adagooda iyo dhibtooda ilaahay baa kaga filaada cagsiga qofka sameeyana ee maxay dadka inuu raalli geliyo ilaahay kaga cadhaysiiya dadka inuu raalli geliyo ilaahay kaga cadhaysiiya dadkaa loo wakiishaa buu nebigu tilmaamaya yacni dadkana agtooda hadhow iyagana badbaadi maysid adna markaagunbay kuu miisi doonaan dadadba dadka u miisto ilaahay wuxuu ina leeyahay fawaylun yowmaidin lilmukadibiin aladiina hum fii khawdin yalcabuun maalinta qiyaame halaag ba u sugnaaday kuwii beeniyey rabbigood ee waa maxay iyagoo cayaaraya wax kastaba baatilka dhumbanayay xanta waxyaabaha badiya waxaa ka mid ah cadha aad qof u qabto ama xaasidnimo ama wax la mid ah oo marka wax laga sheega aad maad istidhaahdo wax ka sheego sharaftidiisa hoos u dhig ama loolanka innaga waxaynu haysanaa hebel hebel maanta jacbu ku dhajiyey siyaasi hebel baa hadlay oo qoladaa jacbu ku dhajiyey wuu ka cadhaysiin weeyaan waxaynu wadnoo dhamin waana dembi uun ila khayr maad sheegaynin
waxaad waday waa qof muslim oo laga cadhaysiiya buu ahaa waxay yidhahdaan waxyaabaha keena waxaa ka mid ah adduunye jacaylka iyo madax jacaylka xub addunya walxirsu cala su'udud bay yidhahdaan adduunye jacayl iyo madaxnimo raadin oo qofka madaxnimada raadinaya wuxuu jecel yahay isaguna inay ammaantu ku ururto dadka kalena ceebahooda in banka lasoo wada dhigo si uu isagu u noqdo qofka mudan ee dadka agtooda mudan inta kalena inay ceebowdaa buu jecel yahay ayuha alaxiba waxaynu ka warramaynaa waa janno iyo naar kala doorashadood inaad xagga cadaabka u kacdo iyo inaad xagga jannada u kacdo ilaahay cabsidiisa iyo xishood rabbi laga xishoodo ayaa keensada qofku carabkiisa inuu ilaashado ilaahay wuxuu leeyahay am yaxsabuuna أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون dadku ma waxay u malaynayaan inaanan maqlayn baa ilaahay yidhi waxay qarinayaan iyo waxay ku faqfaqayaanba waa maqlaynaa baa ilaahay leeyay kuwii aanu u dirayna ee malaa'igta ahaana waa qorayaan baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu wuxuu ku yidhi war ilaahay ka xishooda istaxyuu min allahi xaqa alxayaa war ilaahay ka xishooda xishoodku xaq u leeyahay markaasay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo rabbi waa ka xishoonaynaa walxamdu lilah bay dhahay inaa nastaxyi walxamdu lilah sidaa uma jeeda buu nebigu yidhi war madaxa iyo waxa uu koobo ilaaliya yacni dhegtaada iyo ishaada iyo kuwan ilaali caloosha iyo waxay weelayso ilaali buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayuha alaxiba waxaad qiyaastaa uun markaad qofka xamanayso waa intii xasanaadka aada lahayd oo aada daadinaysa uun intii ajarka lacagtaada ma qubi lahayd waa maya nina lacagta ma daadiyo oo lacagta iyo ajarka iyoma qiimo badan lacagta waxaa laga yaabaa minis yaro adduunka wax kuu fudaydiya inay noqoto ajarkuse adduunkana wuu fudaydiyaa aakhirana waa waxa keliya lagu badbaadayo sidaa awgeed buu nebigu wuxuu saxaabada ku yidhi war caydha ma taqaanin atadruuna man ilmuflis buu nebigu yihi caydha ma taqaanin qofka mufallaska qofka dee kacay ee caydhoobay waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow caydha waxaanu u naqaanaa man laa dirhama lah walaa mataac ninkaan mood iyo nool toona haysanin baanu caydha u naqaanaa bay dhahay ninkaan mood iyo nool toona haysanin wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninka caydha ama ninka kacay waxaa la yidhaahdaa waa ka aakhiro yimaada isagoo salaad soo sameeyey oo soo soomay oo zako soo bixiyey soo arkaanulislaamkii maaha wuxuu la yimi soon iyo salaad iyo zakuu nebigu tilmaamaya laakiin wuxuu kaloo yimi buu nebigu leeyahy isagoo kaa caayay oo kaa qadfay oo kaa maagay oo kaa xoolihiisa cunay oo kaa dhiiggiisa wax ka daadiyey ayuu yimi dabeetana ajarkiisii baa dadka loo qaybiyaa buu nebigu leeyahy ila wax kaloo aad ku daynbaxdaa ma jiro maalku aakhiro waa intii ajar aad shaqaysatay waa salaadii waa sakadii waa soomkii waa intii xasanaadkii aada shaqaysatay dee daynna waa lagugu leeyahy daynbaxa aakhira marka waxa weeyaan waa ajarkaa la guraya hadduu dhammaado maxaa la yeelayaa markaa wuxuu nebigu tilmaamay qaar wuxoodiiba inay dhammaanayaan intii uu soo shaqaystay dad baa loo qaybiyey welina qaar kaloo wax ku leh baa taagan qaar kaloo weli wax ku leh ayaa taagan wuxuu nebigu tilmaamay kuwa kala dembigoodii inuu dhigantaa ajarkuu kaa qaadan lahaa baa laga soo qaadaya adigaa lagu saaraya isaga dembigii baa laga nuqsaamiyey adigana wax laguu kordhiyey dunuubta kuu biirtay sayi-aadkii baa lagugu sii biiriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kaas ninkaabaa ah caydh haddaad rabto iyo nin khasaaray kaas baa ah ayuha alaxiba
waxaynu u baahanay waxaanaynu saydhsaydhinayna waa xoolahaagiiyo inaad ilaaliso ceebaha dadka intaad ku mashquuli lahayd inaad adigu ceebahaaga ku mashquushid qole heblaaya caynka iyo nin hebel baa saatan iyo bal adigu isbaadhbaadh imisaad ceeb leedahay imisaad nuqsaan leedahay imisaad adigu isbaadhbaadh anas ibnu malik baa waxaa laga sheegaa wuxuu yidhaha magaaladan madiinaan anigu soo gaadhay oo duul lam yakun lahum cuyuub han ceeb lahayn ay deganaan jireen facaabu nnaas dabeetana dadkay markii dambe ceebeeyeen fasaarat lahum cuyuub buu yidhi waxaan soo gaadhay buu leeyahy aqwaaman kaanat lahum cuyuub qaar ceeb lahaa laakiin dadka iskaga aamusay oo aan dadka ceebtooda sheegin oo iyagana ceebtoodii la ilaabay buu yidhi ayuha alaxiba waxay culammadu yidhaahdaan waxyaabaha waxa kan daawada u ah ee lagaga fogaado waxaa ka mid ah inaad meelaha goobaha fiican fadhiisatid dadka saalixiinta ah iyo dadka khayrka hadal haya aada la fadhiisatid oo iska daysid majaalista had iyo goor sharka lagu hayo iyo kuwa bataalinta ee camal kale ay meelahay fadhiistaan waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa jaliiska saalixa iyo jaliiska suu-a waxaa u dhexeeya faraqa u dhexeeya buu nabigu tilmaamaya waxaa fiican inaad akhridid taraajimta iyo taariikhda iyo manaaqibta dadkii saalixiinta ahaa iyo dhaqamadoodii abu caasim الnabiil baa laga sheegaa inuu leeyahy maqtabtu musliman mundu calimtu ana allaha xarama algayb qof maan xaman buu yihi sidii aan u ogaaday xantu inay ceebtay inay xaaraantay si aan u ogaaday cid maan xamanin fudayl ibnu ciyaad baa wuxuu leeyahay taabicigaa weyn baa wuxuu yihi waxaanu soo gaadhnay dad hadalkooda jimce ilaa jimce la tirin karo oo la xifdiyo yacni toddobaad dhan intii eraya uu kugu yidhi waad xifdiyi kartaa buu leeyay jimca dambe waad sheegi kartaa toddobaadkaaba wixii uu ku hadlay siday u yaraayeen xarmala nin la odhan jiray wuxuu yidhi waxaan maqlay ibnu wahab sheekhii la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi waxaan sidhi buu yihi war xanta saad isaga daysaa waxaan ballan qaaday buu yidhi haddaan qof xanto inaan maalin soomo soontii baa baktiga iga dhigtay buu yihi xantii waa xantaa haddana soon waa xantaa haddana soon maalintii dambaan idhi buu yidhi war maya soonta waxaad uga laxa jeclo badantaa jirtee markaan waxantaba dirham baan bixinaya adigoo yidhaahda markaan waxantaba $10 baan sadaqa u bixinaya dee markaan arkay jeebkaygii oo maranaya buu yidhi xantii waa iska daayay markay noqotay bixi oo bixi oo bixi waxaan arkay buu yidhi jeebkaygii oo dalooshamay dabeetana waxay noqotay buu yidhi wadda iskaga daaya xanta inaan xan iska daayo waxa keentay buu yidhi markaan idhi buu yidhi wax bixi ayuha alaxiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa haddaad dadka ceebahooda ka shaqayso adna ilaahay inuu ku fadeexadayno u fiirsa uun qof kastoo ceeb badana ah oo dadka wax ka sheega aakhirka wuxuun baad arkay isagoo ay isaga dacallada haystaan oo qaar badan ay wax ka sheegayaan saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay yaa macshara man aslama bilisaanihi walam yufdi liimaanu ilaa qalbihi waar dadkiina kan carabka uu ka islaamay ee aan iimaanku qalbiga ka gelinow laa tu'du lmuslimiina walaa tucayiruuhum walaa tattabicuu cawraatahum war dadka muslimiinta ha dhibina oo ha ceebaynina oo ceebahooda ha raacraacina fainahu man yatabic cawrata akhiihi lmuslim qofka dabagala un qofka walaalkii ee muslimka ah ceebtiisa yatabic illaahu cawratah ilaahay baa isna wuxuu dabagalaa cawradiisa iyo ceebtiisa qofkii ilaahay ceebtiisa dabagalana yafdaxu walow fii jawfi raxli gurigaaga bartankiisa joognaya ilaahay waa ku ceebay haddii rabbi subxaanahu wa tacaala u fiirsa un dadka wax ka sheega inta badan
آخر كينا ويفدحدوا بانو ينا قار كلهم با إلهي كوي تحاما وفدحدوا باكو صوبحضا ولذلك وحا هبون عبتين حنتي اسكدي صديق له ادونك عقابك كوغو ايمان وحباشي كوغو ايمان عذاب القبر وحا كميدا نبي عليه الصلاه والسلام قال مصامره markaasuu yidhi labadan waa la cadaabaya wax weyn lagu cadaabo wax weyn ma hadambi weyn may galin yani waxaanay iska dayn karin weynidiisa nama wax lagu cadaabaya bay ku fasiraan culimadu midikaadaan iska meeyri jirin ka kalana waxbuu xaman jiray xadiisna ma sheegtana waa jirta laakiin riwaayadani waxay sheegaysaa ghiiba xamba isna lagu cadaabaya idan adduunka xantu adduunka waa ku fadeexadoobi adna xabaasha marka tagtana waa lagu cadaabi dee aakhira marka tagtana waa ka waranay iyana naar baad ku gali oo nabiga calayhi salaatu wasalaam micraajka markii la kaxeeyay wixii uu soo arkay waxa kamid ah qaar baan arkay buu yiri cidiya dhaadheer leh oo saa isu xaganaya oo wajigiisa laabtooda diiraya markaas aan idhi buu yiri jibriil kuwani maxay ahaayeen markaas wuxuu yiri waa kuwii hilibka dadka cuni jiray yani waa kuwii dadka xaman jiray iyagana sida ba cadaabkoodu noqonaya wayaqauna fi a'raadihim ku tilmaamay waa kuwii hilibka dadka cuni jiray ee cirdigooda ku dhici jiray ayuha alahibba haboon qofka muslimka ah wixii horana inuu ka toobad keeno waxa dambana inuu iska ilaaliyo xantu inay xaaraanta waa wada taqaaneen laakiin maxaan idinku celinaya caawa waa hadlaya waxaan uga hadlaya inay dhaqankeena bedelo ma aha inaan macluumo cilmi cusub idiin sheegi maayo waa wax taqaaneen xantu inay xaaraanta qof kastoo muslim oo yaqaanay soo maaha waa wax la yaqaanay laakiin waxaynu isxasuusinaynaa war sibaynu u fudaydsanayee ciqaab kulul baa ka ratibmaysa adduun leh oo xabaal leh oo aakhira leh intaba leh ilaahayna wuxuu ina leeyahay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun war mu'minow dhammaantiin ilaahay u toobadkeen toobadda waa kuwa culimmadu inoo sheegi jiray xadiidkii nebiga ee ugu horreeya الندم التوبة إن تكمل وتو وحي هراء كعدعي حماها جي كمل وتو إن يتوبطي إن يكمل توبطي إن تكفقه أو وحي ما نسكوض يهدنا وأن توبتك أنا يناني قروح بدني توبة نصوحة وحا وحي مركات كفقه وعلماء وحي كلوت المام جرينا يكمل تهي أخيرا مركات وحا صعدا hadday ku saabsiisantay bini aadamna inaad istixlaal weydiisato xoolo dad iyo dhac iyo cirdigooda inay hadday waxaa tahayna inaad weydiisato inaad ka xalaalowdo wari cafi inaad tidhaahdo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man kaanat cindahu madlama liakhiihi min cirdin aw min shayin falyataxallalhu minhu alyowm warninkii dulmiyey walaalkii ee ama sharaftiisa dulmiyey ama lafihiisa wax kale ka dulmiyeyow war imika weydiiso inuu xalaal ka noqotid inuu ku cafiyo hadda weydiiso inta aanay imanin maalin aan dirham iyo diinaar toona jirin buu nabigu leeyahay maalin aan xoolo wax tarin iyo wax kale inta aanay imanin hadda weydiiso waa maalinta camalka uu noqonayo waxa lagu dayn baxaa inta aanay taasi imanin hadda weydiisa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam culimadu waxay yidhaahdaan si guud haddaad u weydiisan karto way fiicantay waxaanu haddaad u sheegto inuu ka sii cadhoodo oo dhib kale sii keenaya hadday tahayna way fiicantay inaad u sheegto haddayse mushkilad kale sii abuurayso oo waxaan haddaad sheegtaba bale kale ka sii ratibmayso waxa ka roon bay yidhaahdaan inaad waxba u sheeginaya inaad ilaahay isagana dembi dhaaf u weydiiso inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala isagana dembi dhaaf u weydiiso ilaahayna subxaanahu wa tacaala aada uga toobad keentid haddaanad adigu waxaman xantana ha dhegaysan
dadku inna way dhegaysataa inna warkay akhridaa adigu majliska ha camirin oo ha odhanin xantaan anigu waa iska aamusnaa une iyagaa warka waday iyana ku anfici mayso ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا قرآنك waxaa soo degay baa ilaahay leeyahay haddaa meel maqashaan fadhidaan ilaahay aayadkiisa ama laga gaaloobaya ama lagu jeesjeesaya ama dee la dhinac marayo waa meel dembi ka socdo ha sii fadhiyin baa ilaahay ku yidhi iskaga tag haddaanay warka la akhriyayna warku uu dembi yahay dembigaa golihiisa waxba ha sii fadhin waa laba mid un bay culammadu yidhaahdaan inaad radin karto tidhaahdo waryaa waxana wadaan waa dembiya inaga daaya inaad radinba karin iskaga tag marka ha sii fadhiin majliskaasi haddaad sii fadhido waad la mid noqonaysaa nebiguna wuxuu leeyahy man daba can cirdi akhiihi bilghayba kaana xaqan cala allahi an yactiqahu min annaar qofka walaalkiisa muslimka ah difaaca isagoo maqan nin baa la maagaya war nabadgeliya baad ku tidhi waa difaacda ilaahay dartii baad u difaacaysa inaan wax la xamanin ma aha teeni dee uun kuwa reerkiina marka lasoo qaadanaya inaad cadhooto kuwa reerka kalehana inaad ka qayb qaadato taa maaha ee waxaynu ka warramaynaa inaad dembinimada diidan tahay dembinimada inaad diidan tahay walaalkaa haddaad sidaa ku difaacayso ilaahay wuxuu korkiisa isna isa saaray qiyaamaha inuu naarta kaa difaaco kaana xaqan cala allahi an yactiqahu min annaar idan ayuha alaxiba nusuusta qur'aanka ee ku soo aroortay nebiga calayh isalaatu wasalaam oo meel fadhiya xadiis dheer ayaa nin la sheegay malik ibnu dukshin la yidhaahdo markaasaa mid yidhi daka munaafiqun laa yuxibu allaha warasuulah kaasi waa munaafiq alla iyo rasuultoona ma jecla markaasuu nebigu wuxuu ku yihi laa taqul lahu dak war ha odhanin sidaa war miyaad ogeyn inuu leeyahay laa ilaaha ila allah yuriidu biha wajha allah yuriidu bidalika wajha war sawka laa ilaaha ila allah le oo ilaahay wejigiisa u leh markaasay joogsadeen saxaabadii waxay dhahay allahu warasuuluhu aclam amaa naxnu fawallahi laa naraa wuddahu walaa xadiidahu ilaa ila lmunaafiqiin ilaah iyo rasuul baa naga og laakiin ninkaa wuxun baan anagu inta badan aragn isagoo munaafiqiinta la fadhiyo munaafiqiinta ka dhex warramayu baan anagu arki jirnay bay leeyihin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay markaa war ninka tawxiidsada ee ilaahay wejigiisa ku raadinaya ilaahay naarta waa ka fogeeya waxay tilmaamaysaa in dadku ka dheeraado xanta mararka qureel ay inuun bannaanaan karto laakiin dadka badh baa inta badan intay u raadiyaan qiil mararkaasi awrkooda ku kacsada war hadda aakhira kaa dambaysa ilaahay maxkamadiisiina waa dambaysa mararka qura inuun ay bannaanaan karto waxay idhaahdaan waa haddaad maxkamad ka ashtakoonayso kale oo ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay laa yuxibu allahu ljahra bisuu'i min alqowli ila man dulim dee markaad ashtakoonayso waxaad sheegaysaa wixii lagugu sameeyey waana laga yaabaa inuu isagu diidan yahay waxa in la sheego laakiin markaan xaqaagii inaad dhacsato qaadi muslima baad leedahay waxaasaa igu dhaco saasaa laygu sameeyey markaa waa bannaantay bay culammadu yidhaahdaan oo waa kuwa xadiidku sheegayo layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatah ninka dadka xoolaha intuu ka daynsaday isagoo xoolele meermeeriya in la sheego oo cirdigiisa wax laga sheego la yidhaha waana meermeerinaya waxa iyagibuna siin la-ya ama qaadigu cuquubo saaraa waa bannaantay buu nebigu ku tilmaamaya mararka qura ay dhici karto inaad sheegtaa waxaa ka mida bay idhaahdeen alistiftaa fatwaad rabtaa si kalena kuma sheegi karti laguguma fatwoon karo inaad leedahay dee aabbahay baa i dulmiya ama walaalkay baa i dulmiya ama waxan baa igu dhacay maxaan sameeya waa fatwaad doonaysaa diiniga laakiin waxay idhaahdaan mararkaasoo dhanna inta qardiga inta danta fulinaysuun baad sheegaysaa dee iska wadi maysid yacni inta fatwadaadu ay kuugu asaxayso in si saxa lagugu sheego ama
wixii ay isku hayseen lagaaga garnaqayo ma jiro laakiin wuxuu sameeyo dhan meelaha kale ka sameeyay dad soo tiriso de ma aha baabkii laga reeday marka waxa laga hadlayaa waa dantaada tan marka wixii aad ku gaari lahayd inay tay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam hinda ayaa u timi hinda bint Utba waa gabadhii uu qabay Abu Sufyaan saxaabigii la oran jiray Abu Sufyaan waxay ku tuhmaysaa inuu yara gacan adag yahay waxay tiri ilaahay rasuulkiisiyo adagu de waa gacan adag oo nama siyaanagii carruurta wax lagu filan annana de markuu nasiin waaye marmar baanu ka qaadnaa marka waxay sheeganaysaa inay wax ka yara qaado ee xaalka iyagu muxuu yahay khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf buu nabigu yiri inta biilka adiga iyo carruurtu ku filan ka qaata buu nabigu tilmaamay marka ma oranin ninka maxad dabacalnimo ugu sheegaysiyo waxaasi de intan ay sheegtay waxay ku rabtay fatwo in loo sheego oo may rabin ceeb kale de waxay rabtay waxan yar ay ka qaadaysay inay u banaan tahay iyo inaanay u banaanayn waxay dhaadaan mararka qura ay banaantay waxa ka mid ah tagyiirul munkarka munkaraad meel ka socdaad aragta waad adigu mar radin kartid de hadaad booliska u tagto tiraa war meesha waxa lagu hayaa rabshade waxa ka qabta waxa iska banaantay bay leeyihiin ilaan waa cidii wax ka qaban karaysay laakiin intaa in ka badan munkarka uu si loo radiyo haday tahay ka badan ha sheegi waxa la mid ah bay dhahay nasiixa guud oo dadka muslimiinta waxa kula naseexaynayso laakiin waa markay naseexa tahay ee maaha markay ceebaynta مثلا قبل ما النبي قوتي عليه الصلاة والسلام تبتنا صدح نين أحد حتى يبي وشاكت وعيت لي هبل يا هبل يا هبل باقور قربه كم قور سدابي النبي قوي ديس النبي عليه الصلاة والسلام مركاو حربا كي قرسن لهيدون وشاقو هبل بو نبي وخيري حبا ما هيستو معاوية اللي كي بقول كبر كده فن نقضي النبي يقول هبل فرجل طرب لا مال له عيد كلك سي وسعلوك حبا ما هيستو أبو جهمنا وشو دكتك وسيت أبو النبي يعني دمر كو قراعة أسامة قرص أبو النبي مركاكو يقول وحنا بقول المام الله نمان كي قبرنا الله هذلي ناكاسنا وحبا ما هيستو كاننا dumarku garaaca ee ka kala guurso marka erayada wuxuu nabigu u sheegay bay leeyihiin nasiihatan li hadhihi almar'a gabadhatan oo uu naseexaynayay inay mid khayr qaba guursato ama mid nolosheedu isugu baxayso inay guursato culimadu waxay kaloo sheegaan ninka isaguba la banbaxa ceebta كان وحيد هذا نسوي حن ماله ويعني حمه بنك اللي تشوقه تين تصخرة ما بون كارد عندها وضد سمرة وصخران اللي هذا ده سجابا سجى يسموشي ما هني ما يمالك يرح ما تو غورجس كي قرصن شرود ده بدو صيرة بحماه لكن هو حبق لها الكاس كشيفة وميدان عيب تقارنين إسبا مجاهرة وحيد هذا المجاهر بنفسه المستعلم ببدعته أو بمعصيته كاس بيد هذا علماء حن ماله وكيو النبي يقول هاي وكلا بيدها بئس أخو العشيرة وابن العشيرة بتبقى النبي كوسو قراعي تبيتنا ورا لا يغفر واي markii dambe la eego ninaanu nabigu doonayn buu noqday nabigu waanu ka furay waanu soo dhaweeyay laakiin Aisha markuu ka furay wuxuu ku yiri nabigu bi'sa akhul ashira يعني وأري لا تلمام ينون حيه بل النبي وحو تلمام إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه اتقاء فحش ذاتك وحو الشر بدن كيدتك أوي دارتان أفحمدي سيرنبتي سينك وعدان ذاتك برد بيشراتك عصر بحات سلادي ورمكو عايدون هاي اسكنف حاجة كمر أما أمكم بوحو شيء دون كان أبو ذاتك وحو الشر بدن كوي ذاتك يسقى إلاليان حمهودا دراديد كواسو كلا باي علماء قار يرادان حنتيسو ارمي بنانان كرتا waxaan leenahay wardan oo ku badan mooyaan iska ilaali waxba qiil ku sii bambanaysan
حتى هذا كتك ألفتيسا دي دنبي كان راعي مايو دنبي كان راعي مايو أدقونا سيانا دتك كلام مسلم كأجود وقول ردين مواضع تهمة إسكيلال أدقونا ما إله اللي يسكتهم يستو هتجي والنبي عليه الصلاة والسلام هبين بيسقو معتكفة مساجد كسكا اعتكاف سنة أيها هوين كيسي ميت كميدي صواب وغط دبتنا عبار بوشيكي كدي بوسيك حي كورجيدين توجيني بوسيك حي يسقو قبرنا الله صعدة أيها لما السحابة أركنا دبتنا ويدقدقين وحول وارسك شوغا وعد كلامه هو صفيه من النبي يعني إنا يسورن النبي قبرنا ولا شوغي ما إنسان قلبي وضبه ودعين أي النبي حولي ورواه بلايه اسكتشوا قبل النبي تبع على رسلكم إنها صفية بنت حيي صحابة واحدة سبحان الله يا رسول إلى إباح مكوه فأنا ما دام كتوه من أبي ديلي دبيت أنا نبي حولي ور شيطانكم بني آدم كردي يقول نحر راي اسكا آية اسكا الصعدة ابن النبي تبع إذا واحد علماء إلى هذا أديك لفتا دونينا مواضع تهمها تجين أيام مهمة وقت صلاتك ودويه waxaan ku soo koobaya wax weeyaan ma filayo waxaydan aqoonina sheegay intana sheegayba waa in culimadu idinku celcelin jirtay hore u taqaaneen waxaan se u doortay inaan caawa sheego haddana mar kale idinku celiyo in dhaqankeenu wax iska bedelaan diintu markay noloshaada wax ka bedelaysay diin tahay oo qiimo leedahay marka kale aday xujo kugu tahay cadaabkaad isu sii biirinaysaa marka kale waxay qiimo samaynaysaa markay noloshaada wax ka bedelayso waxay leenahay markaa nolosheena wax ka bedesho carabkeena wixii ka soo baxaya nabigu wuxuu yiri war ninkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysano ninkii ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysano buu nabigu leeyahay man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut warama khayr ku hadal ama iska aamu nabigu alayhi salaatu wasalaam wixii aad sileeday khayr baad ka helaysaa hadal wixii aad sileeday khayr ka heli maysid inaad mustaaba ku fiican wixii aad sileedahay khayr ka heli maysid noloshana waad kala garanaysaa waxaad sileeday waa khayr iyo waxaan khayr ahayn qof waliba waa garanaya maxaa khayr laga helayo maxaan khayr laga helay taladii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan qofkii ilaahay iyo maalinta aakhiro rumeeyo wixii aan khayr kuugu jirin iskaga aamo ama khayr ku hadal ama aamo carabkaagu oo nicmo ah oo cadkaa yare halkaa ku jira ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu galladay oo aad makhluuqa kale oo dhan ee dunidan noolaha inala jooga aad kaga gadisanti carabkaasi hadduu ku go-o ama ku xanuuno ama dee waxaa kaa xidhmaysa hadalkii oo dhan bini aadamna waaba hadal qiimahaaguba hadalkaas ugu badan ilaahay ku caasinin ee ilaahay ugu mahadnaq ku wardi quraan ku akhriso dadka waxsan ugu sheeg wixii sharana ka hayso kelmadan caawo dhan wadna waa inta sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma ighfir dhunubana warham mawtana allahumma ighfir dhunubana warham mawtana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.